General Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Gulwade oo ka mid ahaa guddiga madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa si adag u difaacay weeraradii cirka iyo dhulka ahaa ee dowladda askarta ee Maxamed Siyaad Barre ku xasuuqday maato tiro badan oo ka mid ah dadkii gobolada waqooyi ee Soomaaliya oo imika ah Jamhuuriyadda Somaliland. General Gulwade oo xilliga uu sii dumiyay taliskii Siyaad Barre hayay xilka taliyaha Breyska kacaanka kadibna noqday danjiraha Soomaaliya ee Djibouti ayaa waraysigu salaasadii 21 January rifaafiyay telefishinka Shabeelle ee magaalada Muqdisho waxa uu ku dooday in dowladii kale taliska ahayd ay xasuuqaas geysatay iyada oo difaacaysa midnimada iyo qarannimada Soomaaliya. Dowlad kasta oo adduunka ka jirta ay sidaas yeeli lahayd iyadoo diidan in madax banaanideeda iyo midnimadeeda lagu ciyaaro sida uu hadalka u dhigay, isagoo intaasi ku daray in aanu gabi ahaanba jirin wax qaladaad ah oo ay gashay dowladii kacaanku. General Gulwade oo ay u dhaxday gabadh ka mid ah carruurtii Maxamed Siyaad Barre waxa uu sheegay in qorshaha SNM uu ahaa in ay Soomaaliya kala goyso dowlad kasta oo adduunka ka jirta oo tahadda ee federaalku ka mid tahayna ay ka mas'uul tahay in ay ilaaliso midnimada dadka iyo dalka cidii ay u aragto inay khatar ku tahayna uu isticmaasho awoodda ay leedahay oo dhan. Generaalka uu sodoga u ahaa Maxamed Siyaad Barre waxa uu sheegay jabhaddii SNM markii ay soo galaysay gudaha inuu jiray shir uu madaxweynihii xilligaas ee taliska Itoobiya General Mengistu ku soo si ay u burburiyaan Soomaaliya. Xasuuqa dadka rayidka ee dumarka iyo carruurta u badnaa ayaa uu General Gulwade sababteeda ku eedeeyay ciidamadii SNM oo uu sheegay inay gabood ka dhigteen. dada dawlad lagu garaacay runway dada la runway laakiin dal kasto adduunka hal ma ogolaan karo madax banaanadiisa iyo midnimadiisa in lagu ciyaaro dawlad adduunka oo ogol ma jirto. jabhadda iyagoo hubaysan oo dalka inay kala gooyaan diyaar u ah ay magaalada soo galeen. dawladdii markaas jirtay ma waxaad kula talin lahayd inay soo kala cararaan? dawladdan hadda jirta waajibaadkeeda number 1 ma taqaana inay dalka sovereignty-giisa iyo midnimadiisa iyo horukaciisa ilaalisa waayo. hadday jirto cid midnimadaas halis ku ah waxay xaq u leedahay inay isticmaasho كل ما أوتي الله من قوة سمدنا ماذا General Gulwade ayaa ka mid ahaa xubnihii Soomaaliya uga qayb galay wadahadaladii Somaliland ay kula yeelatay dalka Turkiga, sidoo kalena waxa uu ku jiray guddiga uu madaxweyne Farmaajo dhawaan u magacaabay in dowladda Soomaaliya ay ku matasho wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya la filayay in dib loo bilaabo. Laakiin war-saxaafadeed ay madaxtooyada Soomaaliya soo saartay waraysigan General Gulwade kadib ayaa ku sheegtay in ay aqbashay iscasilaad uu ka gudbiyay xubinnimadiisa guddidaas, waxaana iska fogeysay hadallada uu waraysigan ku sheegay, laakiin ma ay sheegin in waqtiga uu iscasilay uu ka horeeyay waraysigan. Hadalka Gulwade waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay maalmihii u dambeeyay socdeen dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ay qaramada midoobay iyo dalka Turkiga iyo Sweden ka dhex muuqdeen oo la doonayay in labada dhinac ay dib u bilaabaan wadahadaladii 4 sano ka hor joogsaday. Cabdi Fataax Xareed, codka Bariga Afrika.